hore soo dhaafay waxaa jiray arrintii ka dhacday qarxigii wixii saa ula socotaan oo idana aan isku daynay mataqaanaa collective in lacag loo ururiyo oo loogu talagalay qarxigii ka dhacay Soomaaliya Muqdisho wixii laga geysan lahaa dadkii waxaa kaloo jiray iyadana arrintii abaarihii oo idana socotay oo lacag badan la ururiyay oo iyadana aan kolleyba dee bulshada laga soo ururiyay ururo keliya ururada iyo afsan oo markii la isku daro ka ahaa mataqaanaa dhaxaad lacag badan oo la soo ururiyo ilaa 60,000 iyo lacag gadaal laga sii daray oo la socotay hadii iska dhig wax 70 gaaray ilaa 80 iska dhig boos anaga lacagtii ay loogu kuma andarin laakiin 13 kun camal adiga almost mataqaanaa wax 80 gaaray idana waxaa jira mataqaanaa dastuurka anaga naga horeeyay wax qoreen oo ahaa strategic plan la yiri oo hadda koor aan noo ahaa macnaha wax udub dhaxaad u ah ururka waan rabnaa arrimaha la rabo in la fuliyo oo bulshada dhexdeeda Efstan marka waxay ku shaqeysaa projectiyada badanana waxa mataqaanaa in Efstan iyada alifto ama iyadoo la tashanayso ururadii ama mataqaanaa ama ururo kale ama hay'ado kale oo dawladda ah marka projectiga ay yimaadaan kadibna marka mataqaanaa la howlgalo oo ururada Efstan ka tirsanaa ay hawsha qabtaan marka halkan waxa ku qoran mataqaanaa waxyaabaha ugu weyn focuska noo saaraan sanadii la soo dhaafo oo adana markasta wax iska soo noqnoqonaya ugu horeysa arrinta macnaha caafimaadka ah caafimaadkana ay qaasatan arrinta ku saabsan mataqaanaa gudniinka fiqifeyda saa ula socotaan inuu ahaa projectiga ugu weynaa oo Efstan ay soo qabatay at least waxaan leeyahay 20 sano ugu dambeeyay كله بيحس ففاينسي هذا زهرة لو بدين كلا تاس أو نور اللي سين متقنا عن حرير في عن لصمين وزارة عفماتك أو إذا لفت كذا أنا متقنا organization كي إنه نقول organization متقنا أو حالله إيشك partner أو بسارد معناها يتحقلين ليسو الرماس مركل جاه الله أرين تاسني تاي والله ما شاء الله أرين وجول يستي الرب بدنا يجرو أو حسك هاللان لكن إلا النيفو وزارة وكلا لأن بدنا الرد مسوقارن waxay u badiyeen dad local ah arrin kale waxa jirta iyadana kale waa nagu cusub oo kale bisa ula socotaan dhaqdhaqaaqa waddanka ka jiro waxyaaba ku saabsan oo caafimaad ama mas'aabli ka deen noqota ama social waxay dhahaan gender gelijkheid ama kale dad barta wasaayada ka aqoonsan ama la socotaan actuality-ka arrimaha ku saabsan rag iyo dumarka waxyaaba badan oo deeya iyo waxyaaba badan oo iska qafuulay ah mataqaana sensitive ah oo anaga aan si fiican ugu dhundalooyin laakiin waxyaaba qaarkood ay macnaha isihiin فكرة إنك كينتد مستوى الوجود إذا وحوق سمين الهيد وحكلو جري إذا أنا أعرف سامسون أو هذين نقطة لأنك وحبر الشارع أوبولينك إيو متقانا ويربار هيد كحواي تنكو سامسون متقانا لدقالنك متقانا لأن يراد لغاية إني ريسك وجيران متقانا إني راديكال نقدان أما دباتوين كلام بولشدي معناها كل حسنايا تاسنا واسكودين دور جال سكودين إن البروجكت لقى سنايا iyadoo lala kaasanayo wasaaradda mataqaanaa integraasiga iyo faylkhayd waxaa kaloo jirta arrinta ku saabsan shaqada iyo integraasiga oo iyadana ah mataqaanaa teema aad u ballaaran oo iyada lafteedana hadda aan weli ku mashquulsannahay kolleyba saa ula socotaan dhowr sano ka horna aan qabanay shir waxaan maleynayaa inay ahayd markii ugu dambeysay 2015 maadaama ay baaris ay sameeyeen ay kusoo bandhigeen joornaalada ugu waaweyn waddanka Soomaalida inay yihiin dadka ugu badan oo dadka bystandiga qaata ilaa ay dhahay 70% ana dad mashaqaystayaal oo adkeerin ku xiran taasoo keentay inaan anaga lafteena bal codki maadaama aan ku hadlayno codkii bulshada inaan wasaaradda la xiriirno iyo hay'adii waxaan ku lug lahaa haddana sanadka hore la soo dhaafay November shirkadii baa soo noqotay oo idana saas kale haddana artikaladii wixii laga qoray oo haddana joornaaladii marka wax mar haddii joornaal soo gaaraan waxay noqonaysaa laftkaaga inaad wax ka geysato taasna waxay nagu qasabtay bal inaan la xiriirno wasaaraddii wasiirka aan warqad u dirnay oo warqada aan u dirnay tweyda kaamarka si aan dhahno dee meeshii haddii baarid la sameeyo oo dhibkii macnaha la xaqiijiyey qorshahan muxuu yahay balaydka muxuu yahay marka maxaa la rabaa in la sameeyo si dee maadaama aad dhib sheegteen dhibkan looga hortago ama mataqaanaa ama wixii dadkii loo sameeyo marka taas laftigeedana waxaa noo socda wada hadal oo annaga Efstan iyo wasaaradda ah oo aan rabnay inaan wixii fikrad annaga aan hayno inaan u gudbino iyo sidii xalka meesha ku jiro iyo dhibka meesha ka socdo iyo waxyaabo badan oo xitaa u baahan in la ogaado baaristaas la sameeyey waxa ay baareen iyo waxay ku beesgaraysan yihiin marka taasna waa arrin socoto
waxaa kaloo loo baahan yahay marka efsan keliya iyo dastuurkii wixii ma qaban karaan waxaa la rabaa hadhow in wax laga qabto waa mataqaanaa ururadii iyo localkii iyo committeeyadii marka inputkiina iyo wada shaqayntiina aad iyo aada lagu baahan yahay siiba mataqaanaa ururada hadda cusub oo sanadii ugu dambeeyey oo active-ka ah oo hoosh qabanaya iyaga lafkooda waa opportunity waxay u tahay fursad xitaa committeegii iyagoo adeegsanaya efsan ay la xiriiraan sida macnaha waxyaabihii dhibaatada ay tabanayaan wax loogu qaban lahaa roolka efsan ay leedahay mataqaanaa arrinta ku saabsan weather obow macnaha soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa taasna project waxaa jiray oo 2016 dhamaaday oo la dhahayo brain game macnaha dadka wax ku barta halkan oo professionalka ah in tidalic ay ku noqdaan soomaaliya si uga soo shaqeeyaan ama xirfadahooda ay ugu gudbiyaan marka projectgaasna waxay ahayd project success noqotay iyada lafkeedana macnaha way istaagtay waa macnaha dhibaatooyinka badanaa projectiga ay macnaha ku lug leeyihin projectiga waa marbay waqti bay bilaabanaysaa waqtina way dhamaanaysaa marka iyada lafkeedana wasaaradii waa la xiriirnay inkastoo weli ay macnaha noo kala caddayn waxaa hadda mustaqbalka in project noocaas oo kale aan la samayn doonin in kale laakiin kolley codsigeena u gudbinay dhowr jeerna waa la xiriirnay xiriirka wasaaraddana marka ma xumo oo way fiican tahay marka taasna waxay u baahan tahay howl badan oo u baahan waa lobby iyo waqti in la geliyo annagoo markasta xitaa ka taxadirayna ama ka cudur daaranayna dastuurka inuu yahay dad faraabilig ah oo haddana shaqaale ah oo caruur iyo xaas iyo adduun kale ku xiran yihiin oo dhibaatooyin kale iska jiraan marka taasay taani weli aan isku daynay si mataqaanaa xiriiradii iyo networkii la sameeyey iyo sidii loo sameyn lahaa arrin kale jirta iyadana oo muhiim ah maadaama efsan ay waxaan umaleynaa 2009 sanadkan soo socda insha allah ay gaaraysa 25 sano guuradii macnaha rubuc qarni waxaa la aasaasay 1994 sanadka soo socda insha allah waxay noqonaysaa de mataqaanaa khruut face waa rubuc qarni moogta marka iyadana waa arrin aada loogu farxo taasna marka waxaan isweydiinayna 25 sano maxaa lasoo qabtay maxaasaa raba oo raba macnaha waxaan hiigsanayna maxay tahay moogta marka waxaan istusnay efsan inay noqon karto kenis centrum ama advice centrum sida macnaha hay-adaha waddanka jiraan oo sida faros oo kale ama hay-adahaas kale oo ku shaqeeya waxyaabahaas bulshada waxa ka jira iyadan marka waxay u baahan tahay waqti iyo mataqaanaa iyo qarash iyo howl iyo dad in loo raadiyo marka iyada lafkeedana kolley waan ku mashquulsanay insha allah kort samfatin kolley waxaan idiin sharaxayaa waxyaaba yaryaroo macnaha aan soo koobay aan isleeyahay waa muhiim in la ogaado projectiyada socda hadda projectiga socda projectiyada socda macnaha oo muhiimka ah waxaa ugu horeysa projectiga oo qiiqiiqeyn ku saabsan naasara oo iyadana maasha allah lasoo ogolaaday oo sanadaha soo socda insha allah aan wada doon ilaa 2021 iyadana ay macnaha leadingka u haysa zahro iyo group dastuur group oo ka tirsan mataqaanaa commission dastuur ka tirsan oo zahro ku caawinaya hawshaas project kale waxaa jira aan soo afjarnay oo ahayd ambi saa ula socotaan ambigana waa garanaysaan waa xitaa loogada meesha ku sawiran iyada lafkeeda waa arrin success ah oo ambiga waxa waaye waxaa lagugu darayaa liisaska hay-adaha macnaha maxaa lahaa caawina haddii dhibaatooyin dhacaan tusaale ahaan oo fundsna raadinka tusaale ahaan hadda waxaa jira rode karaisko kale iyo waxaa jira carkin axico la dhaho waxaa jira hay-adahan waaweyn oo oxfam iyo kuwaas oo xitaa ka wada shaqeeya dibadaha iyo gudahaba waxay haystaan wax la dhaho ambi certificate taas macnaheeda waxaa waaye hadhow waxaad ka qayb geli kartaa haddii dhibaatooyin ka dhacaan soomaaliya waxaad dhihi kartaa okay waan caawini karnaa si lacago loogu ururiyo soomaaliya marka waxaa jira tusaale ahaan ama haddaad la socotaan dhib markuu dhaco kale hadda sanadka hore abaarihii markay dhaceen waxaa jira wax la dhaho week ama hal isbuuc oo khiro 555 macnaha la furayo oo laleeyahay mataqaanaa netherland si macnaha loo tugs in la tugsna tabarucaad wala meesha masaakiin dadku wax bixinayo moogta marka badanaa lacagahaas waxaa waa lacago badan oo milyanis ah hay-adahaasi kusoo dhacaan iyagii baa marka waxay sameynayaan waddamadii inay la xiriiraan dhibaatooyinka jireen si howlo uga qabtaan marka waa isku daynay xitaa arrintii ku saabsaneed abaariga inaan la xiriirno inkasta ay shuruudo badan iyo dhibaatooyin badan aan kala kulannay macnaha maba kugu arkaan inaad tahay qof macnaha partner ma tihid moogta marka su-aalaan weydiiyey waxaan yidhi macnaha haddaan ka qayb galno groupkan macnaha waa adi 11 hay-ado oo isku tegay oo isbuucaas waxa la ururinaayo macnaha hal accountigaasa la furaya lacagta kusoo dhacda hadhow way kala qaybsanayaan
markaas waxay fiirinayaan hay-ad walbo meesha ay macnaha ku leedahay network iyo wax ay gaarsiin karaan marka badan hay-adda ugu weyn oo Soomaaliya ka shaqeynaysa waa Roda Cruise ku ilaahad oo mataqaanaa lacagii gaarsiinay marka iyadana waa insha Allah arrin lagu guuleystay arrinta kale oo ambiga wax balaaran waxaan ugu talin lahaa inaad akhristaan kolay website-ka daagashaan ambiga macnaha faa'iidada fordelkiisa muxuu yahay iyo shuruudaha la iska rabo waxay faa'iido noogu noqotay waxyaabo badan oo aan qasab u noqotay inaan transparent ka dhigno oo lagu soo qoro website-ka tusaale ahaan yaar farslaaqyadii yaar rekening waxyaabo badan oo rabaa in la arko wax Epson ay sameynayso in lagu soo qoro website-ka update laga dhigo shuruudo badan baa daba socda marka taasna waa lagu guuleystay shakhsiyan iyo urur ahaan waxay faa'iido keenaysaa ambiga waxa waaye tusaale ahaan aniga haddaan lacag usoo shubado Epson oo aan dhaho 1,000 euro ama 2,000 euro hala siiyo tabarucaad Soomaaliya dhibaato ka jirta balastinka waa ka soo ceshan kartaa waxaa turug faraaqna ku samayn kartaa badanaa haddaa aragtay aan giftiga marka la sameynayo waxay ku leeyihiin macnaha lacaga ma jiro oo ku bixisay gift ama wax saas kale ah qayb ka soo ceshan kartaa marka ida lafteedana waa interessant صدقني أديب بيحس حوجا دنا حوجا كسر عشان كرتا يلو ده حلالة أو ديب يحب كيجي هذه لو كوب بعدين يا بكدي هذا اللي بقول دي أوسط ديرك هذا دون صدقني بقول شيء بدنا نسمعه مرك تاسو أمبيج يوم كسي ديران تاسو ملوك بوليستي لكن يدا أنا واحد نقطي استتوتكي دستورك دجنا واحد لقى بدله ويدا أنا الرأي فوضيين إنه واحد لقى بدلي كرا وأنا نسكن نقول متقنا يا سيد البرلمان الصومالي يا بلاي ما حس لك شموت مركب الحمد لله يورو نقولي سوا مركب صدق المساجد جارية والمساجد وشو بس عشان بقول يورو عشان تعب بقول يورو سنة تكون في الماضي العكس وصل نقص مركب واحد هني كرامة قاعد مركب كتير اللي سمع أنا مغشين ما أعرف كذا اللي يوري سكير عليه نمكن المساجد بدسيا ويا مركب العكس ما حبيحين بلاستيك هذا ما بيحس هذا واحد بكام غانسة سنة مركز شو كتير بيكون نقص سايش النوال دست يعني أنت وين situation يعني هذا كشوم على ما حكي بيني ذكري لكن شخصيات عادية أنا فهمان وياد أنا مساعد كل سياسة كشوم قاعد تلبرو خاكر مقالة بتشتغل مرة برنامج هذا مساعد كل سياسة إنه عاون لكن واحد شروع أنا أكتب كلي وهي ميقا ليميت هذا الله بقول شو بتطلع عليها من كذا أفترق برماها وأنا العكب بدو شو لكن أنا بلاستيك فيرسين ميقا عليها بأنا شو هذا الشيء اللي يوسع عليه العكب بروجكتي waxay jira hadda iyadana arinta aan ka hadlay oo gender ku saabsanay oo iyadana aan la shaqeynayno ururo waaweyn oo wadanka ka dhisan oo Maroccan ah oo Turki ah oo ajnabi ah oo vluchtelinga ay ku jiraan Netherlands wala dhaho oo Epson ay partner ka tahay projectigaasna waa ta in sheega gender ku saabsan kolay gender ka wax laga hadlayna kolay waa wax balaaran kolay ma aqaan information waxa ka haysan annaga focus waxaan saareen waxa waa wixii annaga na quseeyo oo aan isleenahay bulshada inay dib ku haysaa ma aha arrimo kale oo xasaasi ah sida waxyaabaha kale oo haddaan carabku sii dhufto waxaan leeyahay waxyaabahaas kale wax shaqo aan ku leenahay ma aha waa wax annaga sensitive nagu ah oo diiniyan sensitive ah oo aan la geli karin laakiin waxyaaba badan oo waxaa jira ku saabsan waxay dhahaan ear khibraddigoo kale familiyada dhibaatooyin waxyaaba noocaas xaqa rag iyo dumarka hab diiniyan xitaa oo aan uga faa'iidaysan karno runtii Epson waxay jirtaa muddo 24 sano ka badan marka muddadaas dheer runtii organizationka uu shaqeynayay oo uu ku mashquulsanaay arrimaha khuseeya dadkeena Soomaalida ah iyo mararka qaarkood xataa waxa jira problem annaga kaliya gaar aan noo ahayn laakiin dadka kale oo nala midka ah ama islaamka ah ama dadka kale oo laftooda ajnabiga ay nala wadaagaan marka maadaama muddo ururka jira arrimaha uu ka shaqeynayay mararka qaarkood waxaad gaaraysaa heer aqoonta aad u leedahay waxyaabaha qaarkood ama teema waxay dhahaan in kor u kacdo marka taas waxay keenaysaa in dawladda ha noqoto landlika overhead ama ha noqoto local overhead ama ha noqotaan institutionada kale instansiyada kale waddanka ka jira inay kula soo xiriiraan maadaama ay og yihiin inaad adiga bibaalda teema aad maaragtay specific kenis aad u leedahay inay kula soo xiriiraan marka dadkaas markay kula soo xiriiraan hadii jeer waxay jecel yihiin gratis advice inaad siiso ama jaamacadaha institutionada xataa cilmi baaris sameeyo kale marka waxaan ku fikirnay in keniskaas in bunda laga dhigo oo la aruuriyo cid kastoo u baahan marka hadhowti xataa la dhigi karo keniskaad u baahan tahay gratis ba aha waa inaad iibsataa oo kale si wixii macnaha ka soo baxana macnaha organizationka looga sii faa'iideeyo marka processkaas laftigiisu wuxuu u baahan yahay hawl laakiin waa bilow waa ku jirnaa kenis centrum
advice centrum midkoo noqon lahaa marka taasna waa howl socoto hadda maaragtay lagu guda jira haddii inta hadda waxay ku daro arkii markay F sana noqotay 20 years ay noqotay waxaan soo baaritaan dadka yuhuudda la yiraahdo hadda laba kan central battery khatara oo aan la yaabin mugti waddanka jira dadka yuhuudda askar waddanka hadda u fiirsato waddankan Holland la yiraahdo waxa loo noqdaa Beatles qaab haddii wax jiraanin Beatles qaabka rag baa waxa la dhageyso kan central baa wuxuu sidaas marka ninka tooyada kaanka jooga haddii kan central baa inta wax baaray bisaas noqotay iyaga marka maxay sameeyaan iyaga waxay rabaan baaraya waxay u dirayaan jaamacadaha lacagta marka waxaan weydiinay kan central biya lacag siiya marka noocaas inta kan central dhistaan yaa lacagta siinay yuhuudda iyadaa siisa yuhuudda waddankan iyadaa gaargaraysa iyadaa waddo haddii rabto inay wax u jeediso dhinac waxay sameynayaan Beatles qaabka jaamacadaha waxay siinayaan order haday arrinta tan baar waxaa noo baartaan waxaas ma ahana waxaa baarabina iyo waxay rabaan baaraya waxaa kale ka tagay hadda waxbaa ka soo baxaya iyagaa sii sheegay أنا هذا راح بارو أنا ضدك الصومالية ودد وناكسن وخترة وشقة كوفي عن وفرعون نيكا أقدر فانسين على أرنتها صوبار مرة وين إنه صوبار أرنت الصومالية ضد حيين وعشقيسين ولا يعني حصوبار تضدك وحيالك في عين هلو تو حصوب حيا بيت نسخة من ضدك الصومالية أنا أسمع في عين كرياتيف وي وحالتك يا تويد كلام حالتي كان عاد هيل صوبار تيو واكن أرنتي وهو ببيسبا مال كامر أنا ما كان سنتر بقى واحد نيو waxaa la baarayo oo laga sheegay rag baa baartay adiga markii wax baaratid way tira la timaadid watraaniyo dhageyso waxa kana baardid adiga aan naamasmay hada markii dadka waxa sheegay ma qadhigta jaamacada iyo waxa kasta waxa jira aan naams ana wax kale waxan ka dhaaf waxa kana horta baar marka aan wax ugu soo xiriir xaydaanka marka wixii ku jira baa la soo saaray waana run laakiin waa half baarayd way waa nus runtii waa qayb laga tagay qaybna waa la sheegay marka arrimahaas waxaan kala filanaa in dhageyso inta wax naga sheegay horta bal inagu aanu sheegno ciidanahay لكن waxay u baahan tahay marka yaa ku fiiraysid gareynaya adigu ma haysto dadkii aqoonta lahaa hadda aqoon lahayn weena aqoon guurgaraysid weena dad inta u yeertid adigu dartiis marka waa jaamacadii dad Soomaali oo active dhalinyaro arday oo jaamacada dhameynaysa inaad tala dhigayso test qoraysa arrintan baad marka ma soo xubay marka energy dad Soomaali waxaan doonayaa ama fiiraysid gareynaya waxaas inaan marka aan la nimaadno creative ka projectiga tuu hirgalane in hadi jeer dadka Soomaalida laftigooda laga caawiyo arintaas laga maaragtay wixii macluumaad u baahan yihiin laga siiyo iskuuldiga laftigiisa dadka deemaha sida uga bixi lahaayeen waxyaabaha oo maaragtay arrimada keenay laftigooda waxyaabahaas in dadka laga wacyi geliyo iyo haddii mashruuc kasto ifsan ay horumariso oo hirgalo waxa laga yaabaa in at least qof Soomaaliyeed oo markaas shaqo ah inuu ka shaqeeyo shaqo ka helo maalin noqotaa laba maalin noqotaa saddex maalin noqotaa waxay noqoto mar walba macnaha maaragtay faa'iidadaas kalena way ku jirtaa سؤال اللي وحي هيد local understanding arinta qameentiyada oo kale ururada local ka ah oo ifsan lidka ka ah waa ururo local nifo active ka ah oo aad u firfircoon marka ururada qaarkood magaalooyinka ama qameentiyada ay la jiraan ay ka tirsan ay joogaan xiriir way la leeyihiin oo xiriir fiican oo wada shaqeyn ayaa dhexmara oo wixii uga baahan yihiin way weydiistaan ururada qaarkood waxa laga yaabaa inay yihiin ururo cusub oo iyaga iyo qameentiga macnaha wali xiriir uusan dhexmarin ururadaas oo kale waxaan isku daynaa in qameentiga oo kale aan u ballamino dadka amtinaarka arrimahaas qaabilsan oo kale ururkaas guddigiisa inaan u geyno kanis maakan khasbreek oo aan u sharaxno ururkan oo urur Soomaaliyeed wuxuu ka jiraa magaaladan waa cusub ya guddigiisa waa kana waxyaabo fiican ay qabtaan marka in waxay xaq u leeyihiin oo dadka kale ururada kale magaalada ka jira lagu saacido in iyagana lagu saacido isna baraka